Asalaamu calaykum soo dhawaada waa walaashin Filsan iyo dumarkaaba channel aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa maanta waxaan noo wadaa video cusub ugu horeyn horta intaan videoga bilaabin haddaan nagu cusub tahay subscribe noo saar hore haddaan nala joogi jirtay nala sii joog wixii fariino comment noogu reeb aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa maanta waxaan noo wadaa video kale oo cusub videogan wuxuu ku socdaa maalmahaas arkaysiin social media khaasatan TikTok iyo Facebook aad meel kastaba waxa haysata maanta waxa la leeyahay nin baa la soo qarxiyay maanta waxa la leeyahay gabar baa la soo qarxiyay ceeb ibn aadmiga oo la raadinayo baa haysata waxaan marka maanta videoga ku socdaa dadkeenii Soomaaliyeed waxa helay ma garanayo caalamkii waxay ka fikirayaan aba maalin kastaba waxay ku seexdaan ku soo toosaan rag iyo dumarba yar iyo weynba waxay ku seexdaan ay ku soo toosaan waxa weeyaan inay caalamka horumariyaan inay maalin kastaba wax cusub ay soo saaraan oo isbedel sameeyaan ragii waxay ku foogan yihiin caalamku inay sameeyaan macnaha waxyaabo cusub dayaxa say u gaari lahaayeen macnaha heer xataa waxay taagan yihiin ha macquul ha noqoto mise macquul ay noqonin kama hadlayna arrinkaasi gaalimo yihiin mise muslimiin kama hadlayna arrinkaasi laakiin waxaan ka hadlaynaa maadaama ibn aadmi la yahay oo ilaahay dadkan abuuray oo ilaahay caqliga wuxuu ku siiyay inaad ku fikirtid oo maalin kastaba wax cusub aad ku soo kordhisid noloshaada horumarisid okay haddaba waxa weeyaan arinta ka hadlayna marka waa taas marka waxay ku foogan yihiin in ay dayaxa u gaari lahaayeen horeyba u gaareen marmarka qaarkood waxay ku fikirayaan iyo xataa macquul u noqonin in ay samada ay dadka ay degaan macnaha deegaana ay ka sameystaan meel ay degaan sida dhulka loo degan yahay oo kale taasi macquul may tahay mise maaha kama hadli doono laakiin waxaan ka hadlaynaa macnaha fikirkooda heerku gaarsiisan yahay waa isbedel bay rabaan inay sameeyaan okay dumarkii taas oo kale ganacsi bay rabaan inay sameeyaan caalamka bay horumarinayaan waxay ka fikirayaan noloshooda caafimaadkooda dadka ku xeeran wad arkaysiin qof kasta oo maxay hayday wadankiisa intuu ka baxay galay wadamada caalamka wuxuu ugu talagalay ha noqoto Arab ha noqoto Afrikaan kale ha noqoto wadamada kale ee sharciyada laga qaato ee Europeanka amba Amerikaanka qof wal oo meel tagay inta wadankiisa ka baxay halkii laga rabay inuu ka soo fikiro maxad caalamka ku aragtay maxaa isbedel ah maxaad u baahan tahay inaad wadankaaga ka bedeshid amba la noqotid cilmi ha noqoto waxyaabo cusub ha noqoto oo wadamadaas uu ka soo bartay macnaha sida imika waxa jirta dadka qaarkood dadku isku mid maaha dadka qaarkood waxa jira waxyaabo fiican wadamadan lagu sameeyo waxyaabahaas oo kale markaad eegtid wadankeena way ka maqan tahay wadamada Soomaalida oo dhan meesha doontaba ha noqoto way ka maqan tahay halka laga fikiri lahaa oo laga rabay inaad ka fikirtid halkeebaad wadankaaga maxaad ku soo kordhisaa maxaad ula tagtaa adigiyo faramaran ayaad ka soo baxday adigiyo wax wata ku noqo horumaray wax cusub ku soo kordhay halka ka fikir lahayd maanta dhan waxa laga fikiraya waa ragii dumarkiina hadaba aan soo noqon halkii ka fikir lahayd ganacsi samee maalin kasta sidaynu arkayno meel kasta saas bay uga calaacalayaan nin bay ga tigin nin basan yeelay inta soo caruuraan haysta ma haysto waxaan ku biiliyo markaan ninkii kala tagnay waxay noqotay laba inaan ilmahayga ninka siiyo oo waxaan ku biiliyo ma haysto isagana wuu diiday inuu biiliyo wixii ugu dhaanba waxba hayso weydiin caruurtu hayso amba bay igu soo wareeji okay family waxay ku hayaan ma hayaan waa family danyar family-da qaarkood iyagoona danyar ahayn bay oranayaan macnaha colaade heerka kala gaarsiisay darteed ninka caruurtiisa si anaka adigaan ku dhalnay adigu noo kale laakiin ninka caruurtiisa si okay haddaba halkii ka fikir lahaayeen inay ka baxaan arrinkaas oo dhan oo gabar kastaba ganacsi iyo horumar iyo waxaan ku leeyahay waxbarasho iyo caruurteeda iyo gurigeeda iyo reerkeeda iyo nafteedaba inay horumariyo wax uga soo fikirto kaliya ta Soomaalida arinkooda waxa ku soo ururtay maanta dhan ina waxa ku social media la dhex taagnaado habad dhex taagnaata dad wax ka faa'iideysid ma xuma waayo social media laba waji buu leeyahay wuxuu leeyahay meel qayb xun iyo qayb wanaagsan qof walba dhinacu ka galo ayuu wixii uu kala kulmo ka faa'iidaya haddaba maxay tahay arintan inagu keenaysa ina maanta dhanka social media dhex taagnaano haddana aan ceeb ibn aadmi raadino intaas oo dhan aad arkaysid had tusaalahan ninba macnaha niman baabajay inay yaro kale bay ila leeyahay waa la soo qarxiyay la wadwaday hala wadwado
dadka ugu badan ee difaacayay ee ka hadlayay ee soo garab istaagay ee markastaba lahaa xataa commentiyada marka u fiirsatiin meesha doontaba ha noqotay lahaa iska daaya ragga ceebtooda ha raadinin iska daaya sidan dumar bay haayeen 90% dumar bay haayeen maanta gabadh walaashood ah oo wax kuriyada qaawan la keenin oo wax kuriyadiyoona waxa lagu sameeyay la keenin oo kaliya tahay codad iyo oo shukaasi ku saabsan gabadhaas hal qabo yaan la qabin ilaahay ba naka aakhir leeyno ma soo joojin karo waxa inaan meeshaas wixii ka dhacay ma oogin kaliya waxa maqalna codadkaasna wax walba ma xukumin karo waayo imika waxa la marsiyaa horumar social media lagu jiraa horumar baa la maray la gaarsiisay yahay codadka waa inta la soo jarjaraa la isku dardari karaa codad fara badan oo noocyo kale meelo badan laga kala keenay saad aragteen dad baabay waxa ku shaqeysto maalin kasta codadkiisaas kugu soo dardaraan amba caadi dad macnaha kala meel ku kala hadlaya ka dhigayna iyo isku jawaabaya su'aal isweydiinayna isku jawaabaya taas oo kale ba jirta okay qofkan ay codka u dirtay ma ogaan karna xataa qofku yahay kaliya waxaan maqlaynaa hadalada qaarkood haddaba gabadha noocaas ee saas ah ee macnaha wax maanta dhan lagu ceebisto wax lagu eriyado toona la keenin waxa la leeyahay ma taran naaga eriyeen waxay leeyihiin heblaayada maxayga ah naagta iyadoo la qabo qaraabanaysa naagta iyadoo sidana okay haddaba adiga yaa ku damaanad qaaday in aad noloshan aad ku jiri doontid qof baad imika waxa laga yaabaa in reer leedahay ninkaaga inuu ku duubi doono iyo inuu ku ceebayn doono war maad u haysid uma hayn kartid ina maxay birtoole qof nin kale cadow amba qof kale oo macnaha rabo inuu ku dhibaateeyo aad gacanta uga gali doontid war uma haysid caruur baad dhashay gabdhaad dhashay gabadhii aan gabdha dhalin hataa way dhali doontaa waxa jirta walaalaad leedahay dadkaas oo dhan oo adiga macnaha markay dhibaato soo gaadhay aad ka naxaysaba meel ku go'ayso ma ogaan kartid waxa ku soo socda haddaba waxaan idin leeyahay dumarow sidan ha la isku dhaamo ha la isku xishoodo dhammaan guud ahaan rag iyo dumarba waxaad iska joojisaan ceebahan ibn aadmigeeda raadinaysaan ilaahay sidoo inoo sheegay wuxuu yiri ceeb markaad asturtid kuma boqolaal ceeb oo adigu leedahay ilaahay ku astura ha u malaynina inaad idinku ceeb leediin wallahi ilaahay baa qof kasto ibn aadmiga asturaye hadii ilaahay waxa ku leeyahay dhaqaaq yar saw dhaqaaqdid buu kugu soo ceebeynayo qof adduunka joogi lahaa ma jiro qof walba ceeb kumanaan ceebood ayaa banaanka ka iman lahaa haddaba qof walba ilaahay inuu ku asturo ceebtaada inta alxamdulillah tiraahdo ceebaha umada daba socotid ee daba gurisid iska daaya noloshii dhamaydba Soomaali hadaan nahay waxay noqotay waxa laga sheekeynayaa waa hoos uma laga sheekeynayaa nin iyo naag baasan isii naag baasan tiri nin baa la soo qarxiyay naag baa la soo qarxiyay sida laba nin baasan isku sameeyay sheekadeeni haddaba waxay dhaafilaada hoos bay dhaafilaada san hal isku dhaamo adduunka aynu dhinac ka raacno adduunka soo u hormaray aynu dhinac ka raacno waana yahayn noloshaas bin wadigeena aynu ku jirnaa walaa waynu hormarnaa walaa waxbaynu isku ogolnahay walaa waxba aad iyo aad bayna salaamayntaas ma sheekadu ku soo koobaya gabadhaas aad sharaf waa gabar sharaf leh cid gaari karta ma lahan amaan hala siiyo sheekadiina Soomaaliya hoos soo dhaafto noloshiina iyo arrimihiina ka fikir intaas baan ku soo koobaya ku kulmayna fiidiyoga xiga salaamu alaykum